بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامج كيني دينتا يودينيدا حلقة ديسي توبنات ما أنت إن شاء الله تعالى وحن كجهد لنا قيمك يا أخلاقياتك قيمك أما valueska وحلو يقان يا ethicska لكنك يا أخلاقياتك وحيابها مجتمعاتك اللي قلسوا ومدهنا اللي استاجيو تيرك أجوا وين بلادك يكهر مران أي كمديهن قيمك يا أخلاقياتك شريعة الإسلام أفرتي قضب أو أي كشقينيسي وحاجوا وين وعقيدة قيمك يا أخلاقياتك عباداتك يا معاملاتك صوبناها صلى الله عليه وسلم حلقي مكة وكنولا آذنها وحوجوا يرايي ولا بقضب وعقيدة قيمك يا أخلاقياتك صدح يطبن سنة وصوبناها صلى الله عليه وسلم مكة كنولا dadka wuxuu ka dhisay aqeedada iyo mabaadi'da qiyamka iyo akhlaaqiyadkooda intaas uu ku tarbiyay sallallahu alayhi wasallam markii suubanaha uu soo wareegay Madiino ayaa shariicada islaamka waxay daaweynaysaa cibaadaadka iyo muaamalaadka qiyamka iyo akhlaaqiyadka marka waxaan dareemeynaa in shariicada islaamka ay u tahay tiirarka waaweyn oo loo soo dejiyay kamida laana ummaduhu ma hormaraan mana maarata wanaagsanaadaan inay leeyihiin qiyam iyo akhlaaqiyad wanaagsan maahane watiinka shaacirka aulaha inma al-umam al-akhlaq ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu akhlaaqiyadka iyo qiyamka waxa iskala dawladaha waxa la mujtamacaadka bulshooyinka waxa sameeysta shirkadaha kambaniyada kuwa ganacsiga kuwa service-ka sameeya afraada dadka caadiga ah kulligood waxay leeyihiin qiyam iyo values ay ku shaqeeyaan haddaysan intoodaba qiyam iyo akhlaaqiyad aysan lahayn horumarna ma gaaraan magac iyo sumcadna ma yeeshaan qiyamka iyo akhlaaqiyadka diinta islaamka waa qiyam mutlaq ah nisbi ma ahan ama percentage ma ahan ama waqti qiyam ku dhaqmayso waqti ka tagaysid ma ahan qof kasta kula dhaqmaysaa akhlaaqdaas islaamka ah qof muslina qof aan muslim ahayn waqtiga aad hurdo marka soo jeedid marka ganacsiga ku jirto marka dadka la tacaamulaysid xilli walba qiyamka islaamka waa looga baahan yahay dadka muslimiinta inay la yimaadaan akhlaaqiyadkaas waxa la mid cadaalada oo kale cadaaladu waa qiimo mutlaqa qof yar iyo qof weyn qof haween iyo qof lab ah qof muslim iyo qof aan muslim ahayn intaba waa kula dhaqmaysaa meesha ummadaha kala qiyamkooda iyo akhlaaqiyadkooda ay yihiin qiyam percentage ama akhlaaqiyad nisbi ah waxa dhici karta ummadaha hore in shan maalmood qofku uu yahay qof qiyam leh oo akhlaaqiyad leh oo dadka ugu fiican laba maalmood oo weekend ahna qofkii uu noqdo laba qof nooc kale ah oo aan kii hore uusan ahayn waxa dhacda dawladaha qaybtood in marka ayaga dhexdooda iyo mujtamacooda iyo dadkooda ay la tacaamulayaan in leeyihiin dad qiyam leh akhlaaqiyad leh values leh ethics leh oo aan inaba caadi ahayn markay banaanka u baxaan oo dawlado kale la tacaamulayaan waa dawlado cudwaaniin oo cadow ah oo cunfile oo dadka laayo oo ciyaalka yararka dhibaateeyo oo gabdhihii kufsada qiyamkaas oo kale waxa la yiraahdaa qiyam nisbi ama waa percentage islaamku taa uu ka soo horjeedaa waxa loo baahan yahay dawladaha islaamka in dhexdooda qiyam leeyihiin markay la tacaamulayaan dadkooda markay ummadaha kale la tacaamulayaan qofka muslimkaana waxa looga baahan yahay qiyamkiisa iyo akhlaaqiyadkiisu inuu waqti walba uu ka dhabeeyo qiyamka iyo akhlaaqiyadka waxa jira sababooyin kor u qaada oo hagaajiya oo hormariya iyo asbaab tabar yareeya oo ka dambeeya inay qiyamka akhlaaqiyadka hoos u dhacaan sababaha keena inay hoos u dhacaan qiyamka iyo akhlaaqiyadka ko waxa ka dadkii oo waasicooda diiniga uu yaraado dadka oo maslaxadooda fardiga ka hormariya masaalixda caamka ah waxa kamid ah teknolojiyadan casriga ah waxa kamid ah adduunka iyo horumarka uu gaarayo iyo tatawuraadkiisa oo sida sariica uu gaarayo inahaasba waxay keenaan in dadka qiyamkoodu ay hoos u dhacaan oo ay yaraadaan asbaabaha kor u qaada ama cawaamisha keena inay qiyamka akhlaaqiyadka hormaraan waxa kamid ah tarbiyada wanaagsan oo ciyaalka lagu tarbiyeeyo markay gurigooda joogaan waxaa la mid ah tacliimta iyo manhajka dawladaha ay dejistaan waxbarashada u dejistaan oo ah tacliim u khidmeynaysa qiyamka iyo akhlaaqiyadka ummadaas ay ku nool yihiin
oo iskuulaadka lagu qaato oo jaamacaadka lagu qaato oo madaarista lagu qaato oo dugsiyada lagu qaato waxyaabaha kor u qaada waxaa ka mid a qiyamka akhlaaqiyaadka iclaamka ama waxa loo yaqaano miidiyaha ama baraha bulshada oo ka shaqaysa ama u taagan inay qiyamka iyo akhlaaqiyaadka iyo valueska ummadahooda kor u qaadaan waxyaabaha wanaagsan dadka uga sheekeeyaan waxyaabaha xunxun oo dhan ay ka hortagaan ay la yimaadaan qiyam hadaaf ah oo ay kala jeedaan inay hagaajiyaan dhaqanka mujtamacaadkooda iyo bulshadooda. ibnulqayim raximahullah waxaa laga wariyaa inuu yidhaahdo qiyamka iyo akhlaaqiyaadka diinta islaamka ah waxay salka ku haysaa 4 qiyam oo waaweyn. qiimaha koowaad waxaa weeye alxikma, xikmad. diinta islaamka si u dhan tahay waa xikmad. xikmaddaasina dadka kula tacaamushaa ee dadka ku dhaqdaa. qiimaha labaad oo diinta islaamka ee salka ku haysa waxaa weeye alcadl ama cadaala. cadaaladaas oo lagula dhaqmo dadka say u dhan yihiin muslim ha ahaadaan muslim yaysan ahaan. qiimaha saddexaad waxaa weeye almaslaxa. shaygaanu maslaxad ma ugu jirtaa muslimiinta, maslaxad ma ugu jirtaa communitiga, maslaxad ma ugu jirtaa dadka, ama waxaa loo yaqaan almasaalix almursala. qiimaha afraad waxaa weeye alraxma ama waa naxariista. 4taas qodob bay shareecada islaamka salka ku haysaa. waa tii Allah subxaanahu wa tacaala markuu la hadlayay nabi maxamed uu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. nabi maxamed waxaan kuu soo dirnay ina aadanaha u noqotid raxmad. aayad kale Allah subxaanahu wa tacaala waa tuu ku yidhi waraxmatii wasicat kulla shay. aniga naxariisteeda iyo raxmadeeda wax walba oo dunidan saaran bay ku fillaantay oo ay gaaraysaa. xalaqadeena maantay 3 qodob oo yaryar baan kaga iftiiminaynaa qiyamka iyo wax loo yaqaan. koo waxaa weeye qiyamka maahiyadooda waa maxay, waa maxay qiima. 2 waxaa weeye qiyamku ma sugan yihiin mise way kobcaan oo way hormaraan. 3 waxaa weeye sidee bulshooyinka qiyamka loogu abuuri karaa. qiima ama qiyam waa values, waa shay agtaada qiimo kale. qiimaha waa wax yacni agtaada ku weyn ama mabda ku ah adiga aad aaminsan tahay. culimadu waxay kala qiyamaan qiyamka iyo akhlaaqiyaadka. akhlaaq waxay yidhaahdaan qofka bilaadanka ah waxyaalaha asaga dhaqanka ah u goonid ah qofka. mujtamacaadkana waxaa la yidhahdaa waxyaalaha ay ku dhaqmaan waxa la yidhahdaa qiyam. ama waxaa kaloo dhihi karaa qofka markuu sheegaan aamino mabda ahaan uu u qaato waxaa la yidhahdaa qiimaha ama waa qiyam values uu leeyahay. markuu asaga laftiisa ku dhaqmo oo laga arkana waxaa la yidhahdaa khuluq. waxaa la mid a marka qiimaha loo yaqaano cadaaladda oo kale. markaad aamintid oo agtaada ay qiimo ka yeelato oo value wax kale u noqoto cadaaladda, qiyamkaagu waxaa ka mid a qiimada cadaaladda loo yaqaan. markaa ku dhaqantid oo ay kaa muuqato oo dadka kula tacaamushid oo noqoto qof caadila waxaa la leeyahay qofka khuluqiisa waa cadaalad. marka qiimuhu qofkay maaragtay lafihiisay ku jirtaa, jirkaagay ka mid tahay, dhiigaagay ku dhex jirtaa, wax kaa samaysan oo adiga material ka samaysantaa la yihahdaa qiyam. waa tii Allah subxaanahu wa tacaala uu suubanaha ku yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim. diinta islaamka si fiican bay uga sheekaysay qiyamka iyo akhlaaqiyaadkooda iyo ahamiyadda ay leeyihiin iyo dadka inay la tacaamulaan. diinta islaamkana waxa u samaysay ajar iyo thawaab maalinta qiyaamaha markii la gaaro. waxaa kaloo loo sameeyey dhinaca kale qofka akhlaaq xun iyo dhaqan xun la yimaada ciqaab baa ka ratimaysa markuu qiyaamaha la gaaro. arrinta noocaas marka waxay keenaysaa qofka iimaankiisu yar yahay ama cilmiga diinta uu leeyahay aad u yar ama jahli badan uu haysto ama ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa aanan ku weyneyn, in waxay keenaysaa akhlaaqiyaadka islaamka iyo qiyamka islaamka qofka aysan si fiican uga muuqanin. taasoo hadda tusaale u ah mujtamacaadka muslimiinta ah. mujtamaca hadda Soomaaliya oo kale waa dad muslimiina, waa dad muwaxidiina, waa dad mu'miniina, diinta islaamka ay haystaan. qiyamkii akhlaaqiyaadka islaamka ahaa ma ka dhex muuqdaa bulshadeenna. qofkii marka fiiriya wuxuu arkayaa in diinta aan haysano iyo qiyamkeeda iyo akhlaaqiyaadkeenna ay aad uga duwan tahay waaqiceenna iyo nolosha aan ku noolnahay. diinta islaamka waxay tiriyaan dhiigga la daadinin, dhiigga muslimka ha la ilaaliyo. haddana dhiiggeenna waa daadinaa waana islaynaa. dadka waxaa la yidhi cadaalad ha ku wada dhaqmaan, cadaalad kuma wada dhaqnee waa isdulminaa. waxay diinta islaamka nafaraysaa in musuq maasuqa laga fogaado. musuq maasuq baa nolosheenoo dhanna ka wada buuxda.
diinta islaamka waxay nafaraysaa midnimo iyo alwuxda dhaqankeena waaqicana ma ka tarjumayo qiimaha noocaas oo kale ah maxaa marka dadkii maxaa naga maqan maxaa qiyamka iyo akhlaaqiyaadka diinta islaamka ay nafaraysay waaqicana ay uga muuqan la'yihiin taas dadka culimada ah tarbawiyiinta ama murabbiyiinta qiyamka akhlaaqiyaadka wax ka qora waxay yiraahdaan qiimaha ama qiyamka iyo akhlaaqiyaadka waxay u baahan yihiin in loo bedelo mahaaraad ama waxa loo yaqaan skills ama waxa loo yaqaan xirfad qiimo kasta waxa loo rogayaa ilaa 10 mahaaro ama 10 skills ama 10 xirfadood baa loo bedelaya skills kasta ciyaalka iyo ardayda iyo mujtamaca waxa lagu tababarayaa 5 jeer ilaa 10 jeer markii lagu tababaro qofka ilaa 10 jeer oo kale tan uu practice gareynaya markuu markaa practice gareeyo waxa isku bedelaysaa thaqaafo ama culture dhaqamadiisa kamid ah isku bedelaysaa waxa arkaysaa marka midowga Yurub oo kale waxay samaystaan qiyam akhlaaqiyad ilaa 10 values ama 100 values mid walba waxay u bedeleen intaasoo skills kadib waxay ku tababaraan mujtamacaadkooda iyo bulshooyinkooda kadib wuxuu isku bedelayaa qaanuun iyo wax sharci ah oo dadka ay ku wada tacaamulaan qofkii khilaafana ciqaab ay ka ratamayso hadda company-ga loo yaqaan Samsung oo kale oo teknolojiyadii sameeya wuxuu sameystay 5 qiyam akhlaaqiyad oo dadka asaga shaqaalihiisa uu ku tababaro qiimo kasta wuxuu u sameeyay 20 mahaaro ama 20 skills marka wuxuu leeyahay 100 skills wuxuu ku tababaraa ama orientation ugu sameeyaa shaqaalihiisa oo ay ka mid tahay shaqada la jeclaado waqtiga la ilaaliyo in la wada noolaado in la iscaawiyo in hal abuurka laga dambeeyo fikirka iyo arimahaas oo kale mushkiladda markana haysata ka mujtamac ahaan waxa weeye qiyamkii akhlaaqiyadkii halkaas ay yaalaan qaabkii loogu soo dejin lahaa waaqicina qaabkii awlaadda loogu tarbiyan lahaa sida iskuulaadkeena uga muuqan lahaayeen iyo in loo bedelo mahaaraad iyo skills iyo xirfado baa naga maqan mujtamacaadka marka mujtamac walba wuxuu samaystaa mahaaraad qiyam asaga u gooni ah qiyamkaasna waxay u khidmeynayaan duruufta marka uu ku jiro iyo waaqica uu taagan yahay mujtamac marka dagaal la soo dhaxmaray oo baaba'ay oo jahri badan uu haysto faqri badan uu haysto waxa jira qiyam asaga markaas munaasib u ah oo loogu talgalay mujtamacaadka horumarsan waxay leeyihiin qiyam kale to marka asaga ayaga baahi u hayso markii marka qiyamka la dejinayo iyo valueska la dejinayo waa in mujtamacaas la qiimeeyaa baahidiisa iyo waxay marka u baahan yihiin qiyam u dhigma loo sameeyaa qiyamkaasna loo bedelaa mahaaraad iyo skills iyo xirfadahana la kala jajabiyo oo marba mid lagu tababarto laga dhigo qiyam la isku tarbiyeyn karo loona sameeyo halbeeg lagu qiyaaso sida imtixaanaadka kale loo qiimeeyo haddii kuwaas aan la sameynin qiyamka hadda halkaas joogayaan mujtamaca waaqiciisuna dhinac kale u ahaanaya ummadaha marka hormara waxay sameystaan maraakiis ama santaro diyaariya qiyamka iyo akhlaaqiyadka dowladdan hadda Israa'iil la yiraahdo kale waxay leedahay 12 santar oo qiyamka iyo akhlaaqiyadka sameeya oo abuura oo caalamka kala ka gada ay dhanta tiga iyo qiyamka iyo valueska dowladda Israa'iil ay leedahay dowladda Iran oo kale waxay leedahay 8 santar ama 8 markas bay leedahay oo qiyamka iyo akhlaaqiyadka dhisa ama waxa loo yaqaan sinaacat alqiyam mid kamid ah wuxuu u shaqeeyaa u adeegaa baarlamaankooda ama nidaamkooda loo yaqaano hay'adda loo yaqaano tashkhiis nidaam waxay marka u abuurtaa qiyam iyo akhlaaqiyad waxay caalamka ka gadaysaa ay dhanta tiga Iraaniyiinta iyo falsafadooda iyo madhabtooda iyo shiicanimadoodii sida caalamka loo gadi lahaa kaliya ka shaqeynaysa dowladda Soomaaliya oo kale ah center noocaasna ma lahan manahijteeda iyo curriculumkeeda noocaasna ay ku dhaqmaana uma diyaarsana inay maaragtay qiyamka iyo akhlaaqiyadka horumariyaan mujtamaca ay ku dhisaan maaragtay akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan guriyahana uma diyaarsana masaajidadii iskuulaadkii marka mujtamaca runtii waxaa noqonay daayaca oo baaba'san si marka mujtamaca Soomaaliya loo soo celiyo loo hormariyo caalamka uu la tartamo waxaan u baahannahay manzuumad qiyam inaan sameysano system ama nidaam qiyam iyo akhlaaqiyada mujtamaca mar labaad soo celiya dhaqanka iyo akhlaaqiyadkeena hadda aan u baahannahay runtii way badan yihiin waxa la dhihi karaa 4 kamid ah aan xoog saarno oo 40 sano soo socda ama 50 sano soo socda aan dhisno akhlaaqiyadka iyo qiyamka aan aad ugu baahannahay runtii kow waxa ka ah qiimaha loo yaqaan midnimada
qiimaha nabadda wada noolaanshaha la dagaalanka musuq maasuqa hufnaanta iyo ammaanada qiyamkaasoo kale hadda waa qiimo aad u wanaagsan mujtamaceennana aad uga maqan aniga waxaan dhihi lahaa hal qiimo haddaan xoogga saarno mujtamaceenna wax badan oo usoo noqon lahaa qiimahaas oo ah la dagaalanka musuq maasuqa ama waxaa loo yaqaano hufnaantaasoo gasha diinta taasoo gasha siyaasadda taasoo gasha ganacsiga taasoo gasha waxbarashada taasoo arrimaha bulshada gasha fikirka gala Soomaaliya markaa fiirisidna problemeedkooda tirada badan wuxuu iskugu imaanayaa musuq maasuqa wuxuu naga galay guryaha iyo masaajidadii iskuulaadkii bulshadii waxbarashadii ilaa iyo siyaasadda ilaa iyo dowladda meesha ugu sarreysa ilaa iyo dowladda meesha ugu hooseysa ciladaasaa na wada haysata sidee loola dagaalami karaa musuq maasuqa sidee loo horumarin karaa qiimaha la dagaalanka musuq maasuqa iyo hufnaanta intee skills iyo mahaaraad iyo xirfadaha laga samayn karaa ma u bedeli karnaa la dagaalanka musuq maasuqa ama qiimaha hufnaanta skills iyo xirfado ma u bedeli karnaa intee xirfado laga soo saari karaa inta skills ama xirfado ee loo bedeli karo hufnaanta si mujtamacan ugu soo noqdo inta kulan kale aan ka gaarina waxaan idin leeyahay waa ilaa liqaa'in aakhar wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh